السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديات بان دمانتين دي سلامية ميل كستو جوجتان با سو دواada cid kale oo gabay ka tirisay ma jirta iyaduna way jirta iyaduna ninkaa ka tiriyey maxaa magaciisa la odhan jiray waxaa jirtay nin la yidhaahdo maxamuud cali fadal maxamuud warfadal nin la odhan jiray oo ku noolaa dalkaasi marka xagga tansaaniya dhulkaa ku maqnaa ayaa isaguna markii la maqlay dhammaantiin waan idinka qaaday waa karbaash aada u badan weliba waa karbaash taariikh dhaba un laga hadlayo qofna taariikh aanu lahayn saari mayno taariikh dhaba ayaan weliba caawa ka hadlaynaa taariikhdan ka hadlaynana kulle haweenku way ka baxsan yihiin oo maayeen haween waxba odhan mayno dumar laakiin rag taariikhda ay saa ku leeyihiin iyo soomaali ayaa caawa badka loo soo dhigaya markaa dhammaantiin soo dhawaada dhammaantiin waana sheer garaynaysaan dhammaan
عليكم السلام. الو. ها maxaa guuxaya waa xadhigga dabka ku jiray mise talo waa talaagadii malaha talaagadda halkan ka shidanay caawa waa la isla sugayaa taariikho badan si aada ha u soo gasho taariikho badan baa caawa la isla sugayaa raggii dhadiga isaaq loo yaqaanay ayaa maanta isago waxay isboodin inay xineeye yeesheen raggii aan soomaalina taariikh ku lahayn isaaqna aan taariikh ku lahayn ayaa maanta waxay u xoogeysteen tororog iyo been iyo qabqabna ma socoto taariikh dhabaa miiska la ysku soo saarayaa iyo waxaad ahayd iyo waxaad hadda tahay haa xadhigga dabkaa ku jiray kaasaa guuxaya filayaa markaa taariikho badan ayaa caawa miiska loo soo saarayaa waxaan xaqiiq ahayna waa naga hadhan yihin qofna waxaanu jirin anoo ku eedayn mayno hashe maanta o dhan hadday arab caayaan adeer arab ababa caybo waxba kama qaado hore ayaa adeer isaaqba iskuu kaya tago macal cay waxba naga qaadi wey laakiin anagu cashar wax xaqiiqaan halkaa usoo bandhigaya ilaa taariikhdii sayid maxamed cabdulla xasane 1900 ilaa tii dowladdii maxamed siyaad barre wixii hargeysa ka dhacay raggii ka dagaalami kari waayey ee foorsanayay tan somalilan wixii ka dhacay dalka markii la xoreeyey dadkii loogu yimid faqash dhexdeeda intaba caawaan soo bandhigaynaa waayo howlib si dad badan baa taariikhda waxay u yaqaanaan wax layska yidhaahdo ama wax beenahoo layska soo dhoodhoobo qof layskaga caayi karo taariikhi waa wax qoran waa wax saxa oo xaqiiqiyana dad aan weligood yaalahood shisheeyana aan xabad ku ridin iskana celin karin maanta laakiin isku haysta inay xiniyeesheen ya may maanta isku haysta inay xiniyeesheen si sharciyaa waxay ahaayeen haddaba loo tusaya waxaan arkayay inankaas hablaha arab iyo garxajis iyo aan waxba dee macal dumar caayayey waxaan la yaabay horta ciddu dee islahaa cayda usoo jiid waa dumarka habarawal annagu dumarka habarawal caayi mayno laakiin waxaan la yaabay boqolaal dumaro habarawaloo comity ku taageerayo iyagu laftigoodu caytamayay annagoo adan caytami mayno nasab baanu nahay hablana ma cayno laakiin raggu waxay yihiin baanu karbaashnaa oo ragga un baan anoo karbaashnaa habla xaasha jawaabteydan iyo halkan waxaa soo fadhiistayna habla kuma socoto xaasha annaga hablaha arab iyo kuwa habar awlaa isku kaaya mid iyo mid inan waliba
laakiin ragga halkaas soo fadhiisanaya ayuun baan anigu jawaabtiisii siinaya. markaan soo qaato suugaamaystayaasha taariikhiga Soomaaliyeed oo dhan, haddaan soo qaado sayid maxamed cabdulla xasan, waxaynu ka haynaa gabaygii ahaa hama beena futo honasha hama beena hadal aan wax tarin habar wali baa. gabayga kelmadda macnaheedu qof waliba u garanaya. xilliga qoomaluudku jiray horta xilligaas ay ahayd. futo honasha hadal aan wax tarin habar wali baa. hama beena hadal aan wax tarin. hadal beena iyo cays ka socota looma baahna, taariikh dhabaa loo baahan yahay. waxaa jiray nin kaloo isaguna ahaa abidkiiba dhoomaha isaaq dhaguma noolayne dhanka iga xigtaan bay wadnaha dhooni moo tahay haddun baaba dheer xoogle iyo dhiiri barateene afkuna weydii dheeri herbadna dhuub ma gelisaan. ninkii sidaa lahaa aniga muxuu ilahaa digyacabiyadii baan lahayn dhagartu saarnayd haddii dhoobirkoodii sitaan arag ma dhaafteen. sayidku markuu lahaa futo honasha hama beena hadal aan wax tarin habar wali baa leh, aniga muxuu lahaa hadduu awrku heeryada ka rido hiilna arab baa leh. aniga ficil buu igu sheegay. khaliif waa nin majeerteena, waa ninkii lahaa maaraha raggii ridi jiray iyo arab namuune. adiga muxuu kugu yidhi? khaliif waa nin majeertay ilaahay xasaw dhintay. maaraha raggii ridi jiray iyo arab namuuney. habar awashii dumar lamoodka ahayd soo maxaabsaday buuri. bal hadeeg habar awashii dumar lamoodka ahayd soo maxaabsaday maaraha raggii ridi jiray iyo arab namuune. waa gabayaaga aan carab iyo habar awal hayn, gabayaagaan sheegaya. dheeg maxamed yaasiin muxuu yidhi? dagaal ay shidaan ma baktiyiin daayina abidkaade hilimaad haddii laga dugsado kama dambeeyaane araboo dibnaha rugaya hadduu la soo kici ku daqiiqo gaaskii ooli jiray daanta gubadleeye saanadiiyo dabkay kala hadheen laga dulgeeraar ee haysdul yaalla meydkeedu waa doqon abaalkeeda. adigana muxuu ku yidhi? sacad muuse wuxuu yidhi arab degtaa galbeed ka xigay diilintana yaalay geerida iyo noloshaba isdamac yaqaanaane haddaan lagu dabaabeyn geesinimo looma diidane haddii libinta reer liibaan kacdu raaca banadiiro samataroo dabkiisi taadula soo kiciyo inay halkoodii naga daafacaan doorkan la arkay warkan sa ay dabayluhu sidaan ima deexsane dibna waanu hubsanaya hay degabsanaadeen buu ku yidhi. adna bal hadda eeg markaynu soo galno xukuumaddii maxamed siyaad bare, raggii calanka la cararay ee u adeegayey koonfur ee dabadhilifka u ahaa yay ahaayeene calanka qaaday. isweydiiye calankii waqooyi ee xornimada qaatay raggii la cararay yay ahaayeen. ina cigaal iyo ina cartay ahaayeen. waa marka xaqiiqeen golaha sare yaa ku jiray ee fataalka u ahaa ina saleemaan dafluha. xilligaa ragga isaaqa xiniyaha leh meelna ismay taagi karahay. ina cali abukur oo la xidhay oo shanta golaha sare ku jiray ayaa ina saleemaan dafle ninkii muxuu ahaa ina saleemaan dafle ina saleemaan dafle ninkii ciise muuse lagu soo daray halkii in adeerkii laga xidhay. dhantignimadu waa taa. cidday faqash ku shaqaysan jirtayna waa ciddaas. markaynu dalka xoreynayna 1991 dowladihii salballaadh lagu dhisayey kuwii ku jirayna iyagay ahaayeen. anugu wax xaqiiq aan ahayn ma sheegayo. ina cartaa ka mid ahaa kuwii ra-iisul wasaaraha loo magacaabay. u adeegayey faqash bay ahaayeen.
waana xaqiiq dhibaatooyinkii ka dhacayay dalka magaalada hargeysa haddaan soo qaato ninkii buulle la odhan jiray gabadha hadda uu qabo ee caruuraha u leh ee labada caruuree hore sacad muse leh ama habara u lah iyadoo la qabo ayuu buulle intuu yidhi weliba guriga ii soo dhaaf gurigiisii ku qabay waxaa haddaba ayaan darridu hayd ninkii gaadhiga u wadaynayuu haa waa ninkii sacad muse ee gabadhan buulla guursaday ninkii qabay in adeerkii ruma ayaa gaadhigana u waday ayaan darrida ka dhacday nin araba haddii laga qaadi lahaa ama nigarxajisa wuu toogan lahaa gurigiisiina laguma qabeen xaasha waxaad kaloo ku darsataa cabdilaahi askar koox baa la socotay oo hawsha la waday ilaa 1,000 qofa oo ina koodbuur yarkii hawsha waday ahaa ninkii soo sheegay nin sacad musaabaha marka kii u horreeyey la xidhay oo in askara qasab waxaa ku noqotay intaan raggaa kale la qaban inay ninkaa la baxaan maalintii haashka lagu baktiinayey ee ilkaha laga qubay ulahaa tolo ayaa reer sheekh saxaaqa 40 korneyl oo habar awala ayaa fadhiyey 40 korneyl oo habar awala saa u fadhiyey nin baa ka gabiyo wuxuu yidhi askar laba dibli loogu xidhay dooxa herar maalin ilkuhu ka daadsiyey sigaarku ku daxsay guudkiisa iyo faanku maxbuuskii kaga dul geeraaray sheekhii la duugiyey saaq maad u diran qaylo bal inay ku sii dayn karaan keen durriyadaada markuu sidaa gaani ku lahaa 40 nin oo habar awada wal korneyla fadhiyey bal inay ku sii dayn karaan keen durriyadaada doqon lama dugsadiyo nimaan hilibku diirayne dar kaloo ka sii xigayba way dacal la joogeene soo intii ibraahim jiir damqaday dirir umu faydin halkaa ina koodburo nin garxajiis ka damqaday 40 nin oo habar awala istaa ugu xeernaa waa ninka abwaankii waa ninku sheegayo dar kaloo ka sii xigayba way dacal la joogeen nin kaloo isaaqa sacabka ilmaadeeradii may tumen isagoo haash lagu bakbaktinayo ilkaha laga qubayo dhadignimadu waa taa waana wixii laga dagaalamay raggii loo dagaalamay baa marka runta laga hadlo raggii loo dagaalamay waxyaabahaasa ka mid ahaa ku soo wada duuduub waxaan sii xusuustaa maalintii berbere la gelayey horta beesha keliya ee isaaq ee markii dalka la soo gelayey aan taliyo urur lahayn 50 nin oo urura aan lahayn waxay ahayd beesha ciise muse 50 nin oo urura ma lahayn ma dafirayo rag saraakiilo badan oo ibraahim dhegaweyne ka mid yahay oo sacad ka mid yahay way lahaayeen laakiin urur 50 nin oo ciise muse oo urur ah may jirin dhegaweyne geesi tol waaye buu ahaa arab iyo garxajis ayuu saa ugu meersan jiray ciidankooda watay waa xaqiiqiin markaan runta ka hadlayno weligii ciidan ciise muuse uu u qudbaday isdhex taaga u waay meelay joogaanba lamana aqoon waxaa sii xustaa markii berbere la gelayey waxaanu hayn 21 gaari rag badan imika halkaa ay gula jiraa laftigoodu goobjoog bay ahaayeen 21 gaari ee halkaa marayey 11 gaari ciidankii koodbuur bay ahaayeen arab iyo garxas baa watay 2 sideedaad baa wadatay 2 muuse cabdallaa watay sideedaadna waxay ahayd habaroonista burco 2 lixaadee bii baa wadato muuse cabdallaah lixaadee halkaasna waa 4 iyo 11 soo 5 iyo 10 maaha 2 habar jeclaa wadato koobaad baa laga keenay soo 7 iyo 10 maaha
midna sayid xamsa wato sacad muuse laga keenay waa 18 soo maaha ciise muusena 3 bay wateen 21 ka gaari 3 wateen oo ka ibraahim dhagaweyne isaga maragiga ah mandheera lagaga tagay haddaba ayaan darrida aanan noloshayda arag waxa ahayd markii halganka lagu jiray ee nin walba isaaqba halkaa ka soo dagaalamayay weligay ismaan lahayn magaalooyin shidan oo reer qabiilo dhami degan tahay ayaad arki doontaa oo faqash u shidantay waxaa ka bilownay dheenta gebiga magaaladuba way shidan tahay ciise muuse cidi kama maqnaa waa abdaal waa dacarburuq waa darigodle waa xamaas waxaan u tagnay qabiilo dhan oo faqash iska dhex degan oo maqaaxyahoodii u shidan yihiin shidanaaba shidan oon dagaalkaynu ku jirnayba war ka haynin ayaan darrida dhacday boqol maragyada way nool yihiin ha igu beeniyaan waxaan u qaadan waa dadkan mafaqash baymaka maya waa ciise muuse waa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan been sheegahay dhaga weynaa ka maraga oo maanta xaya wixii berbera galay badankoodu waxay waa ka wada mara yaa subxaan berberaanu galay reerkii dhammaa cidiba kama maqnaa reerkii dhammaa wallaahi cidi kama maqnaa waa markii ninka xiniinta leh wax iska celinayey iyaguna faqash bay u adeegayeen iyo dadkii qaxoontiyada ee sabacad iyo xumba weyne joogay ayay u adeegayeen waxaan sii xusuustaa maalin maalmaha ka mid ah anagoo beli axmed ka guurno ciidanka koodbuura oo koda yaro gelay inaanu nin ciise musaa qabannay faqash baanu iskaga dhignoo beebee baanu ku ridnay nin imika bacood la ydhaa beebee u waday oo hargeysa jooga ayaanu saarnay waxaanu ku yihi faqashta snm cid ma ka taqaanaa wuxuu lagu yidhi nin la ydhaa caydiid cagjar waa nin isaxaaqa oo snmt ilaa 2 haa wuxuu lagu yidhi nin la yaqaan caydiid cagjar iyo inankiisa maydho caydiid ayaanu ilaa 83 garhka warsamaxaas ku haysanaa labaduba way nala socdaan labadu ninuu sidaa yidhiba way nala socdaan horta basaasiinta noocaasee u basaasiintaa bay ahay faqash 10 nin oo mujaahidiina oo soo halgamay oo fiican oo dhaga weyne ka mid yahay ilaahay raalliha ka ahaadee oo way sacad ka mid yahay reerka way ka soo baxeen tol bay waayeenoo tolkood faqash bay uga yimaadeen tolkood faqash bay uga yimaadeenoo balligubadle ayaa arab marti ugu ahaayeen oo kaa dhaga weynaha igu beeniyo radeeg haddaba waa maalintay qadhaadhayd ee isaaq waxaan ku qaxoontiyada intuu ka soo iyo haw deganaa ee halganka lagu jiray iyagu rag iyo dumar markaad dhubato ka bilowda iyo ilaa berberaa inta tuulo u dhaxaysa iyadoo camiroon ay faqash sidaa iskaga dhex joogaan oy faqash habliyoo dhan siiyeen ayaan ugu tagnay nin dhintayna markhaati u qabsan maayo dhaga weynoo ciise musaabaa iga markhaatiya cid kaleba qabsan maayo ciise muuse anahay markhaati u qabsan maayo dheentaanu ka bilownay dacarburuq abdaal xamaas lafaruug xabaalo tumaalood waa magaalo dhan oo camiran oo askartii faqashta iyo ciise muuse wada degan yihiin wixii habla joogana la siiyeyba ayaan darrida dhacday waa maalintii isaaq halgamayey maalintaasaa waxaan ogaaday 10 nin ee dhaga weyne ka mid yahay ee halka balligubadle uun jooga ee ciidamada garxajis iyo ciidamada carab saa u dhex taagan show-niman bilaa tolo ayay ahaayeen oo tolkood isdhiibeen qabiilka keliya ee isaaq ee faqash isku dhiibay bay ahaayeen ciise muuse ee la xoreeyey
عدة اللي حرينا وهبرور عد كلا لما حرين حقيقة مركا إنه كهذا الله إنه فنت كهذا الله عدي ساقط على ما يوها برور عدة اللي حرينا يروها برور وحويان ninkii shisheeye wax ka tari waay inay hablacaydad ku meereystaan way u garowdaa laakiin haddaan kuu sheego hablaha arab iyo ciise muuse hablaha arab ee halganka soo galay baa ka badnaa hablaha arab ee halganka soo galay ayaa ka badnaa ciise muuseba weliba waan kuu shidi doonaayo cajaladdaa waxaa duubay nin habara wala ciidamadana nimanka sawirka ka qaadaya waxa weeye ciidamada waana ilaa arki doontaan loo yaqaano shaqsanaani hablaha waa arki doontaan waa habeenkii hargeysa la soo gelayay iyo qalabkoodii hablaha arabeed maanta caaysa inay ku xoreeyeen baa kuu sheegayaa dhulka Soomaaliyeed gobolka Waqooyi kana xoreeyaan cadawga haystay muddada faraha badan leh ee uu madaxda yahay xorarka Afweyne يجاهدون في سبيل الله بأموالكم وبكم الرحمن الرحيم شخصناو waxa fadhiya waxa weeye nimankii ayaa dhulkoodii waxaad aragtaan iyagoo hubkooda soo sheegay ee shaqsanaaw waxaad aragtaan iyagoo hubkooda u dheeyahay oo sita qoryihi garab taagana walaalahoodan maanta ku baxaya inay qabsadaan magaaladoodii waxa ciidamada qoryihi garab taagana walaalahoodan maanta ku baxaya inay qabsadaan magaalada waxay ka tirsan yihiin ciidamadan SNMta qaybta hubaysan amba armoredka nimanka halkan fadhiya waxa weeye nimankii reer baadiye ahaa oo ciidamadan SNMta ku soo biray maanta si ay garab iyo gaashaanba u siiyaan walaalahooda xoreynaya dhulkoodii oo haystay cadaawo haddii aad islahaydeen dumarka ma qayb galaan dagaal dhul lagu xoreynayo maanta ayaad hortiina ku aragtaan hablahaasi waa hablaha ka tirsan ciidamada SNMta kooxdii aan markii hore idin soo sheegay ee shaqsanaaw waxaad aragtaan iyagoo hubkoodii u dheeyahay oo sita qoryihii garab taagana walaalahoodan maanta ku baxaya inay qabsadaan magaaladoodii magaalo madaxda u ahayd dhulkooda Hargeysa haddaba hablaha arab waa kuwa habeenka hargeysa soo galay jeeday qaarna ay qoryahooda sitay ciise muusana xilligaa isaga ah dhammaan gacanta faqash bay u galeen afar dhaga weyneeya weyse caddayo dhowr inuu ku jiro cumar tooriye ilaahay u naxariistee iyo weyse cadda iyo dhaga weyne oo bilaataloo la odhan jiray dhaga weynena geesi tol waayey oo balligubadle marti ku ahaa marna ciidanka qolada garxajis raaci jiray marna ciidanka arab ayaa ka jiray ciise muuse waxaan kaga kalsoonay 20 hablood ee arab ee halganka soo galay ayaa ka cawaadisanaa ee markii hargeysa la soo galay qoriga jeeni qaartay cajaladaasna nin Sacad Muuse baa duubay waliba waa markii hargeysa loo soo dhaqaaqay waxa uu yaqaanaan ciise muuse dagaal sokeeye ayay weligood mar galeen 92 qolada jilib ka mid ah garxajis dileen noloshooda may gelin dagaal shisheeye iyo sokeeye toona maalintii raggu dagaalamayeen looguma yimaadeen raggii ciise muuse jaamalaaye wada taagan jaamalaaye iyagoo wada taagan oo sida dumarka sidaa wada foorara looguma yimaadeen hal nin oo araba hargeysaba loogu yimid xaasha adiguna ilaa iyo dheenta iyo ilaa berberaad isdaba taxnayd oon qof kuu maqnayn
toban kaan inay isdhiibay mooye waa taariikh xaqiiqiyan markaynu ka hadlayno waxaan sii xusuustaa dhaga weyne oo muusanaabaya oo wallaahi baan ku dhaartay waa kaa maanta xayga ahee arab iyo garxajis qof aan ahayn inaanu tirsan jirin kuna muusanaabi jirin nin tolkii ka qustay buu ahaa oy cadow u adeegayeen ayuu ahaa waxaan leeyahay annaga adeer arab baan cidda loo hanjabaye manihin adigaanu ku xorayno oonu futadaada xoraynay waxaan xusuustaa maalintii mashruuca wajaale la gelayay ay habar awaloo dhammi isku timid ee ay lahaayeen kaalay arabow xabadda naga horrida noo horrida arabow haddaad maqasheen ciidanka lagu yidhaahdo afraad aa habar awal u taqaanaan gobonnimadu siday tahay may qariyeen beesha ayuub oo taliye ku-xigeenkii axmed abiib dhagax uu ahaa afraad taliye ku-xigeen ka ahaa ayuub oo dhammi ciidanka afraad bay ahaayeen toljecel oo dhammina ciidanka shanaad bay ahaayeen axmed hebel maraykan taliyihii ciidanka shanaad buu ahaa nin toljeclaa buu ahaa waana qariyaan ragga ugu kulkululaa afraad iyo shanaadna toljecliyo ayuub bay ahaayeen anaa maanta runta idiin sheegaya ciidan gaar ay u lahaayeen sacad habar awal oo keligoodiiba maba jiro hal ciidan mooyaane ciidankii la odhan jiray xamse ama labaatanaad ayay gaar u lahaayeen afraad gaar umay lahayn reer kastaa wuu ku jiray shanaad waa sidaa xaashinayl ayaa ka mid ahaa raggii tigirkada wada nin arab ah waxaa ka mid ahaa siciid guuleed oo nin habar yoorisa waxaa ka mid ahaa nin habar jeclo oo gaari teedhisabanas wada jiray taliyo shanaad wuxuu ahaa nin mahdi ninkay isbedelay nin toljeclaa buu ahaa markii dambena cumar sheekh oo toljeclaa baa taliye ku-xigeen ka ahaa maantana way ku faanaan waxaan leeyahay sheekadoodii waxay dhaafi weyday dumar haddaba dalkii sidaa loogu soo halgamayey dadkii sidaa loo xoreynayey maxay ugu abaalgudeen dadkii xoreeyey bal isweydiiya abaallaawayaashaan idiin sheegayaa maxay ugu abaalgudeen taariikhaha somalilan xilintay madaxweyne xilliyada ay hoggaan ka noqdeen baan idiin sheegayaa ilaa lixdankii markii aynu doorannay swal cigaal la doortay tobabay la carareenoo calankii intay la carareen bay geeyeen soomaaliya dhexdeeda oy aakhiro ku rideen dowladdii reer waqooyigu hantay ee ingiriiska xornimada u ka qaatay iyagaa la cararay hadday magaca u haystaan in magac ku leeyihiin taariikhda labaad ee ay hoggaan qabteen waa maantada aynu joogno ma taqaanaa tallaabadii u horreysay ee musabixii uu baarlamaanka hordhigay oo uu soo saxeexay uu soo gudbiyey uu yihi baarlamaanka ansixiya waxani waa wax taariikh anu waxaan saxayn kama sheegayo musabixii qodobkii u horreeyey ee uu soo gudbiyey wuxuu ahaa xeerka jinsiga ragga isqaba qof islaama kama suurto gasho qof soomaaliya kama suurto gasho qof reer sheekh saxaaqana kama suurto gasho inuu yidhaah raggu inay isguursadaan waa saxe ansixiya waa tallaabadii u horreysay ee ay la yimaadeen waa xaqiiq waa waxyaabaha taariikhda galay waxaa ka mid ah nin soomaaliya ama islaam sheeganaya ninkii kuubar anderson kuubar ee maraykanka ahaa muu soo horkaceen waa ninkii gaala oo dhammi mamnuucday ayay sacabka u tumeen qadaysiiyeen moodeen inuu nebi u soo daahiray yuutubadaad ku arkaysaa weliba ceebtay sameeyeen caarkeennii hablaheennii wanaagsanaa ayay yidhaaheen kaalee sawirro la gala oo maanta mar walba sidaa laynoo hordhigaya ayaan daro
ma ragga taa samaynaya ayaa maanta cid caayaya mar haddaanay nin arabana khaniis ku sheegahayn dhaqan xunna aanay nagu sheegahayn yaah dee adeer rag baanu waddo iska marinay haddiina la yidhi arab iyo albaabada adag arab iyo aroor gocandhale waa lagaa guuraa dee baqana laga baqayaana lagaa guuray gocandhadu way muddaa arab iyo naftoo meel xun bay ku dhintaana dee ninkii habar awale yidhi madaxa waxay saara haddii aad dilaysaan ee cadceedda la dhigay buu ahaa ninkii yidhi isagoo dhaawac carabka ay kaga tegeen cadceed annagaa runta idiin sheegaynay annagu cay iyo waxani dee annaga horaabay saaqbaaba iskuulkaayo tago cayda ay nagu lahaayeen uma joojino danna kama galno runta markaan idiin sheego cid kastana adeer waddaanu iska barino cidna ma barino waxaan kuu sheegayaa waxay carab oo 4 midh bay ku odhanayaan war 4 midh markii dagaalka lagu jira waa kuwaad lahayd xabadda iga horrid isweydii waa kuwii suugaga iyo jiyabka iyo beebeeyadaba ku siiyey anigaadi martiyeysa maalintaa farahaagu waxba way kuu soo goyn waayeen dadka badh waa murmi kartaa boqolada sacad muse waan murmi karaa horta ciise muse maba murmi karno reer dhan oo isdhiibay bay haayeenoo iyagu waxaan idhaaba ma garanayaba oo wallaahi oo bilaahaya halgan kale 10 nin baa kaga jira waa qabiilan waana reer dhan oo isdhiibayba waana reerkii dhammaa ee faqash loogu yimid iyagoo la degan oo la qolo noqdayba marka iyaga waxaan idhaaba garanba maayo jaamo laayahoodii daa haystumaan war aniga mar haddaan jaamo laayo laygu xamanahayn mar haddaan fakinka laygu xamanahayn mar haddaan kuubar laygu xamanayn mar haddaan qoomaluud laygu xamanayn mar haddaan xeerka jinsiga laydin ansixiye laygu xamanahayn gobonimo rag waa kii la caayo wax kastoo dhan dhaha haddaba gobonimaduna waa u dhalasho mid kalean soo qaadanaya waxaa jira waxaa la yidhaha birmageydo birmageydadu dhaqan bay leedahay waa waxa dadgoob ku noqdaan gunna ku noqdaan habar awal intaasoo inan oo ay abti ay u yihiin ayay gowraceen waa halka laga eego gunta iyo gobta dumar ay qabeen ayay googooyeen oo qabiilhaan ku googooyeen rag habla ka qabayba intay isku qabteen guska iyo xiniyaha jareen waana wada cadaan waana markhaati madoon birmageydada ninka bixin waayey wuu ka mamnuuc buu ahaa magaca soomaaliyeed meel kama soo galo gobonimo birmageydaduna waa intaan kuu sheegay intana way sameeyeen intaba way sameeyeen ya subxaan inaan arab oo abtigii dilay arki maysid inaan u abti u yahay oo u magana gowracay arki maysid waanu ku dhimanaa waxaanu abtigowna annagu kaanu isdilaynan macal hadduu yahay waanu ku dhimannaa hadduu gogashayada yimaado waa kow ragga nala xididka ana ma xagxagano xididnimadu waxay tahay baanu kala marnaa idinkuna guskaa jartaan hadda waa kiina intayd ka qabay 5 nin oo walaalay intay isku qabteen 5tii walaala ahaa ay guska soo jareen waa 2007 2007 ayay had dhakhtarka Hargeysa la keenay yaa subxaana yaa cadiim yaa subxaana yaa cadiim gobonimo adeer afka laga yiraahdo maaha waa wax taariikh ku gala waa wax taariikh la ku gala runta markaynu ka hadlayno waxaan leeyahay waxaa taa ka sii daran maxkamadaha ka jira magaalada Hargeysa jeel weyn baa magaalada Hargeysa ka jira dhaqamada xaqiiqda ah ee ay ku kaceen raggaasi ee caddaanka ah ee mid walba xukun ku dhacay ee jeel qof kastooba aad soo weyn arrintaas soo waraysan karto
mar maaha oo afar maaha oo shan maaha inta maxkamad sidaa loo soo joojiyey rag dekar saaran oo isqaba ah oo beeshaasa timaha igu yaalla ka badan iminkana jeelka Hargeysa ka buuxaan marka hal nin oo aabihii halkaa ka toogtay laga tago hal nin ayuu isaga aabihii raaciyey uu sir magaxumadiisa isdhaafi nin sheekh saxaaq oo maalin walba isagoo gaya oo dekar saarana maxkamadda laga xukumayo on ceebba u haysan taa haddaa igu aragtaana mabaan ummadaba maanaan dhex nimaadneen laakiin 24 saac idinka jeelkii bay halkaa ka buuxiyey waxaa taa ka daran 38 hal mar diinta kiristanka wada qaatay gaajo awgeed iyo busaarad awgeed oo iminka jeelka Hargeysa ku jira oo 38 koo maxkamaddu xukuntay halkaa beele ee habaro walbay haay 38 kuba hadduu arab gaajoonayo hal nin oo kiristanka qaatana la arki lahaa ama nin fitadiisa forseel ku qoray ayaana la arki lahaa sidiin xaasha dhaqankaa ma lihin uma haliilno kuma noolin cashuurta ummadda kuma noolin cadayga kuma noolin caday waxaad ku faantaa hantida qaranka halkaas ka dhig hantida qaranka hale ummad ba meel haddii dekada tahay iyo hadday wajaalo tahay ummad ba wax kala soo degtay adigu meelihida halkaas ka dhig caday iyo dawarsi mar haddaan qof araba lagu arkahay maanta orado magaalada Hargeysa istaanadeeda tag yaa dawarsada istaan walba taga cid walba tag aroorta waxa Hargeysa dawarsiga ugu nooli waa halka reer Hargeysa waxa caday keena ee wada waalan soo eega waa wada halka reer annagu hablacay meenu xaasho waa hablaha iyago kale waa hablacay naga gaari mayso laakiin anagu ragooda taariikh dhabaan u sheegin oo xaqiiqan u sheegin dadka wada xidhan ee noocadaasa waa wada ogaan kartaan qof kastoo Hargeysa jooga bari buu soo ogaan karaa waana wax cadaan oo xaqiiqa mana aha wax beena kama sheegay wax beena waxaan kaloo jirtay laba qof oo ay soo dileen sanadka imika caawa dhamaanaya labada qofba waa laba dumar oo la soo dilo mid walba 3 nin oo habaro wala soo dilay intay soo kufsadeen baa waliba soo dileen waliba midna in abtidiiba ahayd midna in adeertiiba ahayd ayaa labadaba inta lala soo caraaleysiin dhakhtarka aadna ku miinaya maasaal koomay ku jiraan dhakhtarka noo dhiga markay saadaan baxa gabigoodiiba la wada qabta waa laba jeer baa arintaasina Hargeysa ka dhacday waa ummadda noocaas waxay ku dhaqmaan baa sidaa tahay ummaddu ceebta waxbay u taqaanay wixii ceebta loo yiqiin dad bay ayaa caadadiisa noqotay nin maxkamadda inta rag soo hor joogsada waaweyn waxaan soo xusuustaa maalintii ninkii u dambeeyay la xukumay ayaa kiiska maxkamadda looga socday maxkamaddan tagnay waa dhageysanay dacwadaha 70 oday wada cumaamasta yimid waxay leeyihiin yaa gudoomiye nimankan iyaga deys qabay maxaa adiga ka galay meel dimuqraadiyad ahay waa odayaashoodii waa weynaa yaa subxaana yaa cadiim wax ciyaara ma waa wax runa Hargeysa dhinacna dhaqanka waxa laga isticmaalaa yuhuudda dekar saaran yuhuud ma ba isticmaashay dadka xun baa isticmaalay ahlu kitaabku ma ba isticmaalo dhaqanka dad bay caadadood u tahay waa arkaysay ninkii xisaab soo lahaa qolada garxajis markuu caayib ku leeyahay guska sida loo shaqaanaga idin barayna ayuu ku leeyahay balka warrama waa arkaysay intuu gacanta afka galiyo ayuu leeyahay sida loo shaqaano idin barayna bal ilaahay baan kugu dhaariye ka warrama waa ka cid wax ka sheegaya wixii laga xishoon jiray ayay ku xaragoodaan war haddaanu baligubad la geeyno kuubar haddaanu geyno naagtii lisbiyonka haysatay dad xub baan uma noqon lahay labadaba waad geysay arabsiyi gabiile baad ku casuuntay gobonimadaadu ma taasa dad isweydii
ingiriiska ayna kala yaqaano fakinka iyo jaamalayo daamahaagii ka dhigaya dhalinta kacaanka ee warfalada anigana xerihii ciidamadu xaggayga ka dhigayay adigu waxaa tahay buu ku qaybsanaa ingiriisku dee nin waliba wuxuu yaqaanay buu la-ag ayuubuu ka dhisi jiray daamahooda aniga adeer kamuu dhisin waayo habeenkii malaa boqolaad ayaa sacabka loo tumayaa la leeyahay waa sidaa iyo waa sidaa adeer anagu fakin iyo isdaba seexad kumaanaan dhalan arab baana la yidhaha biyihii sheekh saxaaq oo dhabaanu nahay ururisna ma nihin qowmiyado kalena ma urursanno 4 qowmiyadood oo aan midna reer sheekh saxaaq hay baa kugu jira ummadana waanu u soo bandhigi doonaa dad baa british ku haysta oo beenta iska dhaadhicsaa british baana ninku sacabka inuu isagu isku tumo maaha adeer sacab la iskuma tumo arooskeedka mushxaradaha noqonina ha ka baxa biyaha ree isaaq birabiiruhu ha ka baxa biyaha ree isaaq birabiiruhu ha ka baxa biyaha ree isaaq baraxni sheegtaa adaa adeer lagu sheegay oo 1920 anagu barax ma lihin nagumana jiro maxbuub baad arkaysaa abakar cali baad arkaysaa cabdalla xasan baad arkaysaa ableelaad arkaysaa qaraab baad arkaysaa igaad arkaysaa udubcad baad arkaysaa bal hadeeg waxaynu tira koobi karna maaha allaha weyna wuu igaga sarreeya hortayda ragga sacad misaalkaasaan soo qabanaya cad been ha ka sheegaan waa kuwaas annagu adeer biyihii sheekh saxaaq oo caadiyaanu nahay annagu ma nihin kun qolo abtaa loo yihiiyo inani soo jiitay ablaawaa la biirshiye kuwa ehel hamoodeene inta odayga laga beeray alif ma gaadhaan nin waliba aabbihii wuxuu dhalay la arki doonaa annagu adeer biyihii sheekh saxaaq baanu nahay oo dhalada qofna nama taraxo waanu ku xajiimoonaaba waanu ku xajiimoonaa annagu waa dhammaan sheergareeya gacantoodi ma godee annagu waanu ku xajiimoonaa qof aan reer sheekh saxaaq hayno biyaa sheekh saxaaq hayn inuu na soo galo adigu waad ku faantaa laakiin adigu waad ku faantaa carruurta fakinka ku dhalatay iyo dhalinta kacaanka la keenay iyo jaamalaaye ayaad ku dartaa beeshiina iyo qoysaskiina aad ku dartaa qaran baa tahay ilaa iminka odaygu wuu dhalaa ilaa iminka ayuu dhalaa annaga adeer qiyaamihiibuu dhalma daayey 700 oo sannadood ka hor buu dhalma daayey arab idinkana weli wuu dhalaa maanta ka hargeysa yimaada wuu iska kaa sheeganaya adiga waayo lowmawayaan baad cid ma tihid lagama yaaba hargeysa markuu maado inuu nin ciidagala iska noqdo ama nin araba iska noqdo ma noqon karo annaga biyaha sheekh saxaaq waxaan hayn nama maraan haddaba ninkii la xoreeyey een weliba biyaha sheekh saxaaq hayna badhaxa iyo balaayada iyo ururiska ahaa ayaa maanta dad halkaa u soo fadhiisanaya oo weliba la baraya waa adduunyo cid iskamaanaan celin kari waayin in badan baanu iminka eegana lahay bal u kaadi horta waxaa ninkaa hablaha un caayeen lala hadlo kaanu u sheegnaaba wuxuu idhaahdaa wuu noo qabsoomi waaya sacad musaa dabada ka wada haddaba noo daayo ha noogu imanin annagaa karbaashayne oo mid walba taariikhdiisa halkaa soo dhigayne wallaahi inaan rag waaweyn oo kornayl ah oo hablahay adeerka u haayeen lagu xukumay hargeysa dhexdeeda miiska soo dhigi oo ilaahay iga ogi anigu bilays baan soo maray oo meel waan soo maray ciidan 100 sirood baan hayaa 100 wax baan ogahay 100 wax ayaan anigu ogahay aan ku sheegay adeer wax barsuug arab la yiraahdo ma jiro mana jiro hanagu qasbin annaga Itoobiya reer baa naga dagoon waa Muuse Celi Arab waana sandaladayadii guuda ina dhiima xirsi annaga ku sheeginay baraxna kuma sheegto waa la iskarbaashaya ma dhulka la isjiiday waxaan imika qaar halkan aniga ila yaaban oo ninkan muxuu ahaa waan wada halkan sacabka isaga u wada tumayaan waxay leeyihiin ku soco garxajiskii arabka ku soco naagahooda ku soco ma imika hadalkaygu idin damqay yaa ilma xaaraamin yaa ururis yaa orfalo yaa jaamalaay yaa fakin
ma habeen walba hargeysa ilmaha garaaca ku dhashay dhalinta kacaanka la geeyo marba jilib ku dara ilaahay baa ruuskaada ka dhigay casharkuna waa soconaya habeen walbana wuu soconaya habeen walba wuu soconaya anuu habla caay maayo hablaha habar awal caay maayo xaasha sharaf baan iga mudan yihiin oo way noo dhaxeen oo way ehel baan oo ma caayano laakiin rag waa iska celinaa waa karbaashaynaa waa karbaashaynaa jooga rag looga taag leeyahay afar oromo ah oo GB dabada ka soo wadeen ayro ciise musantiga habeen walba khamri soo siyaal oo halka hablaha kacay annagu habla caay mayna sida ilaahay noo karbaashay ilaahay nooga adagii baanu idinka adagna idin karbaashayna rag wax iska celiya isku haysta waxa si xusuusta barigaanu maryaaloolka hayn dagaalkii maryaaloolka ee qolada garxajis aanu kula jirnay iyagu intaa ma odhan karaan ma ogti waa fuleeyo way foorsanaya rag adan u isdilay aynu dagaalka ku wada jirnay iyadoo Soomaaliland waxa beel kasta joogtaa dhinac joogto 75 gaari ee garxajis la hadhayba 75 kaba hawar walba laga hadhay hal beelo kala gaari kala lagama hadhay har cadu bay ka yaaci jireen hadda iyagoo nagu dhex jira ilaahay googi ayuu ka yaaci jireen imika labada Muuse gawaadhida u wada Muuse biixi laftiisa laba suuq bay ka soo kala carreen labadaba cid gal ka hayst oo midna suuq ti aaruha midna suuq saaran gaari sabaxo iska rogaabuha maantana Muuse labadaba la garusalada hor yaacay Muuse bariis saaray ay labadaba wadaan ninka suuq ka carray muxuu dhashiika yar buu ka haysan karaa barina uu ka carrareeyay iyadoo Soomaaliland daarood samaroon iyo isaaqi kaleba sida u hareer joogan ay gawaarida ka yaacay afku adeer afka laga hadlaa oo cayba taqaanaan oo afka ka dhurantaan marka rag iselo sidaas uu bay uga wada yaacaysan sidaas ayuun baa uga wada yaacaysan ilaahay googi ya marka iska dhig baa lagu oran jiray iska dhig ayaa lagu oran jiray waxa si xusuustaa gaadhi sakaawoya oo saaran yihiin 8 inan oo BKM sita waa 8 hadwanaag horteeda in cida galo id dhaga yar la yiraahdo ayaa inta bud la soo qaaday mid martaa ku dhuftay ilaahay googi qorigii inta ka dhuftay gaadhigii iyo qoriyihiiba kala hadhay waa nin waran laaba kala hadhay hargeysa dhexdeeda waa gaadhigii iyo hadhiiga hadwanaag horteedu kaga qaaday waa wadaynaa 100 taariikhood baan hadaba saa u soo dhigaynaa wallahi inay kornay la khajili oo dhuuman waa la isteyn waaye annagu habla caay mayna raggaanu karbaashayna dhadiga ah caawa halkaas ay nagu joogtaa habeen walba saacada waa la soconaysaa waan wadaya waa rag oo jilbahaynu isdhigaynaa laakiin waxa inoo xeera hablaha u nabadgeliya habla lama caaye gomatiidii koleybe laakiin bal hablaha u nabadgeliyo rag ayaga caayo rag garxajis rag arabo adii fasaxe oo hablaha uu biliska daaya hadaa rigti oo gobonimo meel uu ku yar laabantay aad iyo aad baan dhamaantiin idin wada salaamaya habeen kastana waa la soconaysaa waa wadaynaa ragga adeer jibaha la isdhigaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.